الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال إن شاء الله تعالى وفائدون كيني إيو خير كي إنو كوني هالكن إيو كنال كان إن شاء الله تعالى إيو قيبتا وقابل سن إن شاء الله تعالى إنو مانين كستبه وح خير أما هاي رادو أما إن يرو خير هاتو أما حوغا inaynu usoo gudbino dadka islaamka insha allahu tacaala sidaan anaguna ajar iyo faa'iido uga helno iyaguna ay ajar iyo faa'iido iyo wax wacan ay ku dhageystaan. markaana khayrku walaalayaal laga maarmo khayrka qof ka marma ma jiro. qofka iimaanka lena khayrka iimaanka wuu kusii siyaada kan insha allahu tacaala iimaan weyn doonayana iimaan weyn siduu u heli lahaa ayaa loo tilmaamaa. المهم واحد فائدة له ما نديلي واحد يرحتها هاتي إنا نسوق بنو أيان ندونا وحندورنا إن شاء الله تعالى إنا أمدا يدك إسلام كخير كي يونا ككفافنو وحندورنا إنا ندك خير كشق سنو ديوان كيجا ديوان كيجا إن شاء الله تعالى إنا نكبح سنو دتك أكتودا معناها دتك إنا نخير ككبح سنو إن شاء الله تعالى سلاس أيا إنو بلما قف كستبنا وإن كتلا جلا إن دتك خير ككبح سنو oo dadka khayrka insha Allah ta'ala iyaga ka kansado oo diiwaankooda ka buuxsado oo khayrka iyo wanaagga oo ku faafiyo maalinta yawmal qiyaamah sidoo u helo wax wanaagsan oo ajara insha Allah ta'ala. nin kamid dadkii islaamka ama dadkii cibaadeysan jiray ayaa wuxuu yiri anigu naftayda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan u kaxeeyay iyadoo ooyeysa hadhowtana wadadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay qabsatay وهين أي نقطة يدو كنا فرحسن كنا قسلسة. مركانا ولا ليال إن وحوي قول قاس هذين حوجات تابنا وحوي نكاس الحكولي هاي مركان مع سيد سمين جري دنوب تسمين جري معناها وان إسكداي إلهي سبحانه وتعالى درادي يعني إسكداي وحنكون فكر حمانتي إلهي سبحانه وتعالى درادي إنها كتكتو ما دام نفتي حمانتي أي برتي ومعناها xumaantii ay la qabsatay awood ayaan u isticmaalay sidaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu xiro wadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ku toosiyo. markaan awood u isticmaalay de waxa imanaya xoogaan dhinaca nafta waxa ka imanaya diditaan iyo in ay magaranaysa ay yara diidaso iyo in ay waxyaalaha ay jecelayd ama waxyaalihi ay ku macaasan jirtay inay ka fuqdo in ay aad iyo aad u diidaso. marka heer waxay gaadhsan tahay macnaha ay waxa xitaa ku oydo heer ay gaadhsan tahay inay waxa xitaa ku oydo iska badaa in ay ka tagtee macnaha in ay oydo markay macnaha waxa ka tagaso. markaana waa sidaas oo kale sida labada qof ay jecel markay kala tagayaan ee isku dul ooyayaan tusaalahan oo kale macnaha naftanu xumaantaas ayay jeceshahay xumaantaas ayay macnaha jacaylan caadi ahayn bay u qaatay. marka xumaantaas iyo macaankaas iyo waxaas markay jeclaatay qofku naftiisa markuu waxa ka soo kicinayo de almuhim naftan way ooyeysaa. markay ooyeyso markaan wuxuu yiri iyadoo ooyeysa ayaan ka soo kaxeeyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ayaan geeyay oo mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran ayaan ka dhigay oo macaasidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadi ayaan ku tagay ilaa ay ka faraxday ay ka qosashay oo nolol wacan iyo macaan wacan ay gashay. markaana waa sidaas qofku Ilaahay subhanahu wa ta'ala naftiisa haduu u kaxeenayo haduu macaasi ka kaxeenayo oo khayraad iyo barakaad uu gelinayo haduu macnaha inuu salaada tukan inuu khayrka xaadirin uu ka kaxeenayo oo uu kaxeenayo inuu khayrka xaadiro salaada tukado haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caasiyo uu ka kaxeenayo oo uu kaxeenayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu adeeco naftaas wuxuu u wadaa qofkaas meel khayr badan meel ay ku farxaso meel ay dumaaniina wasakiina iyo xasilooni ay ka heliso meel ay khayraad farabadan ay ka heli doonto ayuu u wadaa. mar waliba meel dulli iyo meel murugo leh iyo meel oohina iyo meel nolol xun leh uma wado. qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u warta ee ugu hor dheeraya waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel wanaagsan ayuu qofkaas u kaxeenaya naftiisa. markaana saas oo kale dadkii asxaabtaha kuwii hore ee macnaha asxaabta kuwii ugu hor islaamay ee la dilay ee diinta lagu dhibayay hadhow markay diintoodii ku adkaysteen oo ay iimaankii heleen kuwii kale ee wax dilayay ee islaamka fitneynay markay iyagu islaameen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadada wacan u tusay
markay islaameen oo ay dadkii walaalahood ee islaamka ay u yimaadeen ay dhibi jireen waxay ku dhaheen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh, ilaahi idin qoray inaad naga soo hordheereysaan islaamka, macaanka islaamka inaad idinku naga soo hordheereysaan oo aad naga horgashaan oo aad naga hordareentaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa idin qoray. markaana way iskugu faani jireen asxaabta kuwii hore waa lagu faani jiray oo kuwaas hore waxa weeye kuwo khayrkooda iyo wanaagooda la qirsanaa ayay ahaayeen oo kuwo macnaha inay diinta iyo khayrka u hordheereeyeen kuwa qirsana ayay ahaayeen. waa qofka markuu iimaan leeyahay qofka kale ee ka weyn ama qofka diinta kugu hordheeraya wuxuu qirayaa qofkaas inuu iimaan kugu hordheereeyo. qof kastaba oo islaam ah oo ku garta in aad ahlu iimaan tahay oo ahlu makaarim aad tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala wax wanaagsan uu ku siiyey, qofkii garta qof kastoo islaam ah markuu ku arko oo iimaan leh isla markiiba wuu garanayaa hadhowtuna duco iyo khayr ayuu xaggaaga usoo kaxeynaya. maxaa yeelay qofkan iimaan buu leeyahay, wuu garanayaa waxaan inay khayr tahay ayuu garanayaa. saasoo kale axadul culamaa ayaa wuxuu dhihi jiray markuu ninka weyn arko, nin ka mid ah culimadii hore, dadka waaweyn markuu arko ee cirada leh ee ahlu iimaanka laakiinse maaha dadka wadada xunxun iyo xumaanta kusoo barbaaray, xumaantana wadadooda ku socday ee ku adkaystay ee ku samray kuwa maaha, laakiin kuwa markuu arko dadka cirada leh ee ku cirooway ilaahay subxaanahu watacaala diinta iyo khayrka markuu arko ayaa wuxuu dhihi jiray ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad leh, ilaahaygii iyaga ka dhigay mid iigu horeeya khayrka iyo xalaawatul iimaan iyo iimaanka mid iyaga ka horeeya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaa dhigay markaana adaa iga fadli badan buu dhihi jirayoo maxaa yeelay waxaa igaga horeysay iimaankii ayaa igaga horeysay, adaa iga fadli badanoo iimaankii ayaa igaga horeysay. haddii qof ka yar uu arkana wuxuu ku dhihi jiray adaa igaga fadli badan maxaa yeelay anigu waxaan kaaga horeeyay macaasidii iyo dunuubtii ayaan kaaga hormarayo waa kaa horeeyay. macnaha qof yaroo aana dunuub iyo macaasi waxba sameyn aan xilligii isaga kitaabkiisa la qorayay oo dunuubta waxaa loo qorayay una weli gaadhin ayaa wuxuu ku dhihi jiray waxa weeye anaa kaa xun oo adaa iga fadli badan maadaama anigu aan dunuub iyo macaasi kaaga hormaray aan kaa horweynaaday, macnaha adiga weli waxba laguma qorin. markana almuhim waxa weeye waa iimaanku waa sida iimaanku waxa weeye qofka islaamka ah ee iimaanka leh markastaba qiimahaga wuu garanaya, markastaba waxa weeye qiimahaga wuu garanaya. marka waxaan isku dardaarmanaa inay noqono dad iimaan leh. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in allaha ta'ala yaqaru wa qayratullahi an ya'ti al-mar'u ma harrama allahu alayhi. baabkeeni ama mawduucooni hore markaynu xoogaa insha allahu ta'ala taataawano waxba ilaahay subxaanahu watacaala wuu qiiroodaa. ilaahay subxaanahu watacaala qiirihiisuna waxa weeye qofkii in uu la yimaado wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala xarimay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka xaramay haddaad isku taataabtid ilaahay baa kaga cadhaysiisay, ilaahay subxaanahu watacaala baa kaga xanaajisay, ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarintiisii xumayd iyo cadaabkiisii iyo alaabihii uu ku cadaabi jiray oo ku ciqaabi jiray dadka xunxun adaa farahaas kula galay. markaana waxaa la doonayaa ilaahay subxaanahu watacaala in aad hawlihiisa faraha kala baxdid oo ilaahay subxaanahu watacaala aadan caasiyin oo ilaahay subxaanahu watacaala aad adeecdid. si ilaahay subxaanahu watacaala u adeecdid marka hore waa in aad la dagaalamtaa shaydaan oo weliba mar kastaba isagu go-aan ku qaatay inuu wadada ilaahay subxaanahu watacaala kaa fogeeyo, isagoo u nool oo u orda oo macnaha adduunkan u jooga inuu adiga cadaabta ku geliyo, adiga cadaabta inuu geliyo adu u jooga adduunka. wa imma yansaqannaka min ash-shaytaani nasqun fasta'id billahi. haddii shaydaanku oo qalbigaaga wax kusoo turturo oo uu kugu riixo xumaanta iyo waxyaalahaas ama aad ku dhacdid ama qalbigaaga ay kusoo dhacdaba adoo aanu ku dhicin ama aad ku dhacdidna ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqo oo ilaahay shaydaan ka magan gal oo ogow waxaan in uu shaydaan kugu riday. ogow naftaada xun aad adeecday in ay kugu rideen labadaba aamin marka hore. ina aladiina taqaw idaa masahum daa'ifun min ashaydaani tadakkaruu fa idaa hum mubsiruun. oo ilaahay subxaanahu watacaala inaa xustid xiliyada ilaahay subxaanahu watacaala markaad xustid ilaahay xaquu ku tusaya, ilaahay wuxuu kaa dhigayaa mid mubsir ah oo xaqii iyo ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarintiisii wanaagsaneyd iyo ilaahay subxaanahu watacaala inaa caasiday mid garta ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kaa dhigayaa
uu ku tusaya weeye. markaana waxaa la doonayaa in ilaahay subxaanahu watacaala qofku uu soo noqdo. hadduu ilaahay subxaanahu watacaala xumaantiisii uu ka sameeyo ama ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaluhu ka xarimay haddii aad samaysid waxyaalahaas waa inaa ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqotaa. taasoo watuubuu ila llahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun, oo ilaahay subxaanahu watacaala in loo toobad keeno waxa weeye waa lagu liibaanaa. intan waxay ka mid tahay baabkeenii ama mawduuceenii hore insha allahu tacaala dhamaystirkiisii. laakiin haddeer waxaan u gudbanaa waxa weeye waxa la dhaho ilaahay subxaanahu watacaala naftaada inaad u kaxaysid. ilaahay subxaanahu watacaala inaad naftaada u kaxaysid, oo markaa ilaahay subxaanahu watacaala naftaada u kaxaysid qalbigaagu uu wanaagsanaado oo qalbigaagu u xumaado. oo qulubtu sideedaba afarba u qabsantaa. waa qalbun fiihi siraajun, waxa weeye waa qalbi nuur uu ku sugan yahay uu if ka baxayo, iyo qalbi macnaha xidhan uu xidhan yahay. qalbigaasu waxa weeye waa uu daboolan yahay. qalbiga koowaad ee nuurku ka baxayo iftiinku ka baxayo waxa weeye ka mu'minka qalbiga mu'minku intaa wuu ifayaa, oo macnaha daacadu iyo ilaahay subxaanahu watacaala camaladiisa wanaagsan, salaada, sida weysada, sida qur-aanka, waxyaalahaas oo dhan qofka waxaa la dhahaa jirkiisa iyo wejigiisa iyo jirkiisa oo dhan nuur baa ka baxa soo maha. markaa nuurkaasu wuxuu nuuriyey wejiga iyo gacmaha nuur ayuu ku sameeyey. markaa nuurkaas oo kale oo ka daran ayaa wuxuu bedelayaa qalbiga. macnaha nuurka wejiga iyo macnaha jawaarixda kala bedelay ee nuur ka dhigay dee qalbigana isna waa khasab inuu bedelo. markaa nuurkaas marka hore qalbiguu soo bedelay hadhowtana qofkan macnaha jidhkiisii iyo wixiisii ayuu kasoo daahiray. waa sida la dhaho marka laga sheekeynayo xanuunada macnaha qulubta ku dhaca, marka laga sheekeynayo murugada faraha badan, waxyaalaha waalida keena marka laga sheekeynayo ayaa waxaa la dhahaa weliba waxyaalaha waalida keena ee ah ma garanaysaa ee ah sifooyinka haddeer murugadu hadday aada iyo aada u farabadato, haddii aada iyo aada baqdintu iyo cabsidu u farabadato, haddii macnaha xadkeeda ay dhaafto macnaha waxyaalaha macnaha qofku qalbigiisa uu iska cuncuno, waxyaalahaas oo dhan haddii xadkiisa dhaafto qofka waali bay ku keentaa marka dambe. marka waalidaasu waxay kasoo bilaabanaysaa qalbigiisa kasoo bilaabanaysaa. marka hore nafta ayay kasoo gelaysaa murugada faraha badan. qalbiga markay soo qabsato ayaa waxay usoo baxaysaa daahirka ay usoo baxaysaa. qofkii waxaa arkaysaa isagoo sidii dadka waawaalan u dhaqmaya, isagoo macnaha aanan isnadiifinayn oo meelaha kudaafadaha iyo macnaha meelaha qarmuunka waxaa iska fadhiisanaya. waxaa arkaysaa macnaha qofkiiyo macnaha waalidii ay kasoo baxday, laakiin waaliduna marka hore qalbigay kasoo baxday. saasoo kale marka la fasirayo axaadiista nabiga sal allahu alay wasalam qaar ka mid ah oo ah nabiga sal allahu alayhi wasalam aakhiru zamanka inuu maskh u keenayo, macnaha dadka inuu bedelmo, dadku inay bedelmaan, oo macnaha dadku in ay macnaha qulubtooda ay noqonayaan ama qofku uu noqonayo macnaha ama daanyeer ama doofaar oo kale ama ximaar. waxyaalahaas marka laga sheekeynayo culimadu marka maskhiga laftirkiisa wuxuu qaybsamayaa labo. tusaale ahaan daanyeerka iyo doofaarku waa dad aan xishoon soo maaha, oo waxay doonaan sameeyaan, oo waxay doonaan cunaya, oo waxay doonaan hadday doonaan halkaas ku fulfulaya. marka waxaa la dhahaa aakhiru zamanka waxaa imanaya macnaha dadka qalbigooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda ayaa maskh waxa la dhaho ayaa ku dhacaya. oo qofkii islaamka baad arkaysaa waxbuu iska caayaya, wuu sinaysanaya, wuu isqaqaawinaya, gabadhii islaamka ahayd wuu isqaqaawinaysaa, macnaha qofkii islaamka siduu doona u dhaqmaya, macnaha diinba ma jirtoba. qaar ba xitaa hadaa la sheekaystid aad ku tiraahid ma tukataa, maybay ku dhahay anuu ma tukado kowdhe. markaana waxaas waa maxay? waxaweye waa qalbigii ayaa maskh ku dhacay, wuu bedelmay. markaa dadkaasu suurad ahaan waa suurada bini aadanka, laakiinse quluub ahaan marka la eego waxa weeye waa quluubta daanyeerada iyo doofaarkay leeyihiin. maxaa yeelay macnaha waxay doonaan bay sameynayaan fi kulli shay, waxa ay doonaan bay iska sameynayaan, sidii kuwaas ayay u dhaqmayaan, sida xoolaha ayay u dhaqmayaan. markaana maskhu kaawuu ka yimaadaa. markaana almuhim adigu qalbiga qofka iimaanka leh waxa weeye waa qalbi ifaya oo waxaa ka ifaya nuur.
iyo diintii ayaa ka ifasa oo xalaawatul iimaan baa ka ifaya wa qalbun yacni iyo qalbi xidhan qalbiga xidhan waxaa weeye waa ka kaafirka ee gaalka ah iyo wa qalbu mankuus qalbi wuu yahay laakiinse wuu gedisan yahayba gebigiisuba waa weelka marka macnaha dhinaca kale loo rogo miyaad wax ku shubi kartaa may dhinacii daboolnayd ee macnaha wax lagu shubi jiray way hooseysaa soo ma markaana weelkan waxba kuma shubi kartid markaan wax ku shubi karin waxa weeye qalbiga munaafiq waa saas oo kale maanta dhahdaa wax ku shubaysid meeshii waxa lagu shubi lahaa way rogan tahay oo xag hoose u rogan tahay markaana waxaad ku shubatidna saas oo soo doodanayaan dhulkii ku taadanayaan markaana almuhim qalbigaas waa qof qalbiga munaafiqa weeye oo munaafiqii waa kan tukanaya salaadii tukanaya quraanka buu akhrinaya haddana waxaas oo dhan waxaa laga yaabaa salaada subax dhaxan tahayd inuu soo xaadiro waxaa laga yaabaa inuu soo khasbo laakiinse waxaas oo dhan haddana haddaa aragtid macnaha wax ay ka bedelayaan iyo wax ay ku kordhinayaan oo diin ah oo iimaan ah ma jiro marka kuwaas ilaahay subxaanahu watacaala hanaga badbaadiyey wa qalbun tamuduhu maadatan iyo qalbi macnaha laba maado ay isku haysato maadatu liimaan wa maadatu nifaaq walfisq iyo maadatu liimaan waxa weeye waa qalbiga dhexdhexe oo qofkii maalinba wuu toobad keenaya oo maalinna wuu dambaabaya oo xumaan iyo wanaag ayuu isku wadaa markaana qofkaas macnaha laba maadaa isku haysta waxaa isku haysta malaa'igtii iyo waxaa isku haysta shayaadiintii waxaa isku haysta maadatu liimaan wa maadat alfisq waxaa isku haysata maadadii iimaanka yacni iimaankii ayaa isku haysta iyo fisqigii iyo xumaanta marka marba ka guuleysta ama wuxuu noqonayaa dadka macnaha ahlu iimaanka ah ama dadka khad ka baxay buu noqonayaa ee islaamka ka tegay ama saasuu ku dhimanayaayo dee ilaahay subxaanahu watacaala markaas agtiisa ayay abaalmarin taalaa nebigu sal allahu calayhi wasalam qalbigeena wuxuuna amrayaa in aynu macnaha wanaajino oo wanaag ka dhigno oo macnaha qofku markuu ogaado qalbigiisu inuu wanaagsanaaday oo uu doonayo inuu ogaado wuxuu akhrinayaa axaadiista nebiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy nebigu sal allahu alay wasalam halaathun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddex waxyaabood qofka ay qalbiga kaga jiraan qofkaas waa xalaawat aliimaan ayuu dareemay qofkaas waa mu'min saadiq waa qofka mu'minka ee runlowga ah ee ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ka run sheegaya an yakuuna allahu warasuuluhu axabu ilayhi mima siwaahuma sifada koowaad ama waxa koowaad waxaa weeye in ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu uu agtiisa looga jeceyl badan yahay wax kastaba inuu necab yahay laakiin ilaahay iyo rasuulkiisa sal allahu calayhi wasalam inuu jecel yahay camalka wanaagsan markuu camal sameynayo in uu sameeyo wixii ilaahay iyo rasuulkiisa sal allahu calayhi wasalam ay amreen hadduu camal arko in uu eego waxaanu ilaahay iyo rasuulkiisa sal allahu calayhi wasalam raalima ka yahay qofkan wuxuu godanayaa cibaadadii ilaahay subxaanahu watacaala uu amray dariiqii rasuulka sal allahu calayhi wasalam buu ku taagan yahay wax kastaba oo ka hor yimaada dariiqaas iyo cibaadadaas wuu diidayaa oo wuu ka tegayaa oo wuu dayacayaa una jeesan maayo eegina maayo maxaa leh qofkan ilaahay rasuulkiisa sal allahu calayhi wasalam uu jecel yahay markuu jacaylka gaadho qofkaas waa qof iimaan leh oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ka run sheegaya maxaa yeele maxaa ku hoos jira nebiga sal allahu calayhi wasalam iyo rasuulka iyo ilaahay subxaanahu watacaala in amarkoodii la qaato oo qofkan dee amarkoodii buu qaadanayaa salaadii buu tukanayaa wuu soomayaa ilaahay subxaanahu watacaala buu ku xidhan yahay wuu ka baqayaa dariiqiisii khilaafi maayo waxyaalahaas oo dhan ayaa ku hoos jira wa an yuxiba almar'a laa yuxibu ilaa lilah qof waa inuu u jeclaado ilaahay subxaanahu watacaala dartii maahaane haddii qof uu eego ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii buu u jecel yahay wixii jacayl ah maaha waxyaalaha kale macnaha waxyaalo kale oo iska jiro macnaha qofku laga yaabaa in ay jacayl dadku moodaan qofkii macnaha qofkii kula shakaysta ee si wacan kula dhaqma iyo qofkii macnaha si wanaagsan kusoo dhaweeya iyo qofkii macnaha ku yaqaana waxoogaa kaa sheekeeya hamoodin qofkaas inuu ku jecel yahay laakiinse jacaylku waa wax caadiya oo jira oo qofkan ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii inuu wax u jeclaado oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii wax u jeclaada macnaha waxay calaamad weyn oo wanaagsan weeye oo qofkii tusaalahaan qofkii bay isqabanayaan markay isqabtaan diiniyan bay isku qabteen ama qofkii xumaano uu sameeyey qofkii wuxuu sameynaya wuu toobad keenaya qofku markuu toobad keeno oo ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqdo haddii aad jeclaatid oo ilaahay subxaanahu watacaala maadaama usoo noqday markaas ilaahay daraaddii ayaa wax u jecesha laakiin haddaad sida tahay oo aad tirimay ama toobad keen ama ha toobad keenin aniga beriba agteeda ka tahay kuma jeceli marka dee ilaahay subxaanahu watacaala daraaddii wuxuu ma jecelid ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiina
waxba u maanicin. waxa weeye waa adduunyada daraadii ayaa wax u jeclaatay, adduunyada daraadeed ayaa wax u nacday. wa an yakraha iyo qofkaas inuu naco inuu ku laabto kufrinimo iyo fisqi iyo xumaan, sida uu u neceb yahay inuu naar galo siduu u neceb yahay qofkaasu. waa in xumaantii ilaahay subxaanahu watacaala ka badbaadiyey oo uu kasoo qabtay oo ilaahay subxaanahu watacaala kasoo hanuuniyey, waa in uu u naco sida uu u nacayo inuu naar u galo. waxaan kusoo koobanaa qowlu salaf ridwaanullahi calayhim. salafku ridwaanullahi calayhim qowlkii ay dheheen oo ah ina hadihi alquluub jawaala. quluubtan waxa weeye waa wareegto. quluubtan waxa weeye waa wareegto. waxa weeye fa minha maa yajuulu xawla alcarshi. mindu waxaa ka mid a qaar wareegaya xawla alcarshi, carshiga aagaarkiisa ayay wareegayaan. wa minha waxaana ka mid ah koox ama quluub wareegaysa meelaha qurunka, meelaha macnaha aan in la aado aan habboonayn ee xunxun sida kudaafadaha, qashirka, meelahaas oo kale. almuhim muxuu ka wadaa salafku waxay ka wadaan qolkan macnaha qalbiga xawla alcarshi iyo qalbiga wareegaya carshiga agtiisa waxa weeye waa qalbiga mu'minka. maxaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu jecel yahay, ilaahay ayuu xasuusan yahay, wuxuu ku fikirayaa ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahayna wuxuu ka sareeyaa carshiga soo maha, markana meelahaas ayuu wareegayaa qalbigiisu markastaba malaa'igta iyo ilaahay subxaanahu watacaala sidee amaamirtiisa u qaatayo sidaas ayuu u wareegayaa qalbigiisu. markana qalbigaas waa qofka iimaanka leh iyo qofka macnaha diinta iyo khayrka lagu ogyahay kama fikirayo ilaa wax wanaagsan maahaane. haddii aad u timaadid oo aad bal wuxuu ka fikirayo aabaadhid oo aad weydiisid macnaha su-aalooyin wanaagsan oo dhinaca ilaahay subxaanahu watacaala iyo waxyaalaha ku saabsan ayuu kaga sheekeynaya. markaana fahmi maayo ilaa qof kaloo iimaan leh maahaane. marka dadka iimaanka leh iyagaa isfahma, dadka aan iimaanka lahayna iyagaa isfahmo weeye. markana waxaa kaloo ka mid ah buu ku leeyahay quluub wareegaysa meelo aan loo baahnayn ama meelo aan nadiif ahayn. waxa weeye quluubta wareegta meelaha fisqiga. waa qofku markuu fisqiga iyo xumaanta uu badiyo dee inta haddii ay qalbigiisa baadhid ama wuxuu ka fikirayaa in hees la dhegeysto ama in filin la daawado ama wuxuu ka fikirayaa in macnaha laskala qasli iyo macnaha la galo shukaansi xaaraan ah, shukaansi aan banaaneyn in layska galgalo fi kulli shayin. haddaa la sheekaysid intaas un ayuu kaga sheekeynaya. macnaha qalbigiisa meelaha ku fikirayo qofku wuxuu kaga sheekeynayana macnaha waa qofku qalbigu badanaa wuxuu ka fikirayo. markaana quluubta waa labadaas. insha allahu tacaala waxaynu doonaynaa ama aynu isku dayaynaa inay noqono kuwa ka fakera ama kuwa quluubtoodu uu ku wareego xawla alcarshi iyo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.